هو ضعيف وما قوي تأمل فائدة قوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كلا لهن نيكم مساج كجوجة يعني كسرتون كشقينا يكسيهاز كشقينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأود الليه dadku waxay dhahaan xilligii fahad uu joogna wasugida xilligii ugu awoodda badneed siyaasadda looga isticmaal jiray فهد أو سياسي أنا وأرن فهد أو تلينا وسوينا وأرن كلا فلسفة هورا وسردون كهذا والجا سوتك أدونك وأيوة فلسفة سردونك وحيد مرش هذا دينتي ودم بيسي أو مرنا ورباهين بانك شقيناي مرنا وحنك شقيناي سياسة لكن تبرك اللي ديارنا أيوة هراء إن الشيخ نقضي هاي معلم دكتور قرآن وان نقضي أرضي فربضان بانكي وقرآن بري مساجد إمام وكان نقضي مدرر ولبا هدي جد كاس أن كسي جوجي لها وأملينا إنان مخربها نمت في عم بانو حسوستا سورة القصص صفحة قدام بيسة مفسرها فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا مفسرها مركما مرحلة أنا وحنا سلا عشر كور رياضات حتى سياسة وها بسم الله الرحمن الرحيم دعوة الكسور وهذا ورئيس الجارة أو عن لا يلنا إنه أقاسمي هراء نوسجد قرنك فهد ياسين حاج الداهر أهانا لتليه أمني قرنك أقاسم كسور رسالة في marka hore waxaan rabnaa inaan ku bilowno maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad qortid booga sooyaalka soobanaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله adiga iyo tiimkiina risaalo waa idin mahadcelinaya mar haddii dadku ay muslimiin yihiin waxaa saaran waajibaad baa ka saaran qofka diintiisa واجبك كوان وحواي وحي أتقانا إلى قد بسو مركا وحي ودا لي وحي هيد وحان دراسة كسمية جيل كسومالي دا هذا الجوغة وحي صباح ذي مركا لبا مشكلة ذات أما لبا شيء وأنجرين أنا جيل كنجيني هذا جرتو مدة كواد وحواي لقد عربي جاني حوصل عادي وأودي لقد عربي جاي لهيد إلى سجاشميدي برتميهسي هذا أبودي هرملهن جيل كي تعلنت هذا برتي اللغة العربية وكويرتها جبيها من صوماليا هي ضد كده بدها أذيبة لغاية بكود بدها أذي حتى في صوماليا يعني كسيف وقاعدين قاركود مشكلة ده أسمر كوحين نقطي قف كهدوس اللغة العربية أقونن سيداب وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كوجانا يا أما دينتي وكبرنا يا tan labaad daraasadii ka soo baxday waxa waaye in ay yaraatay xalaqaadkii waxbarashada diiniga ah lagu sameyn jiray oo xawligii ku socon jirtay inuu hadda yaraaday ama si kale hadaan u dhigo jiilka dhalinyarada ay hadda jooga inay ku yaraadeen inay diinta inta bartaan masaajid fariistaan xir noqdaan wax bartaan inay ku yaraatay marka waxa fiican maadaama risaalada islaamku ay tahay risaalo caalami ah ummadoo dhan loogu talagalay luqad kastana loogu talagalay in afkoodii loogu geeyo wixii ay rabeen inay ogaadaan sadarteed labadaas sababood horta waxay ugu dhalisay inaan isku dayo bal Soomaalida afkooda inaan ugu turjumo oo aan u qoro buugana sida aan u qoro tarjuma ma ahan waa ta'liif ama curin sadarteed marka waxaan isiri labada baahi oo jirta waxaa ku dabooli kartaa inaad afkii dadkooda kula hadashado wax ugu qortid maxaad ku dooratay in buugga kuugu horeeyay uu noqdo siirada nabiga ama taariikhda nabigeena nabadgelyo xariis kulkiisa ahaatee maxaase muhiim ay kuugu noqotay xilliga waxaa jiray intii de horta qofka haddii uu rabo inuu qiimo iyo wax soo saar ummadda ku soo kordhiyo waxaa u fiican waqtiga aadan dangood ku mashquulsanayn aad firaaqada haysato wixii aad ummadda u faa'iideyn karto iyo waxa adiga faa'iideysan kartaba inaad ku mashquulsho hadda kama hadlayo waxa aniga aan kororsaday waxaan rabaa inaan ka hadlo 2 sano iyo barkii ama 3 sano la soo dhaafay waxaan aad ugu mashquulay inaan 4 buug qoro 4 buug 3 kamid ah waa siyaasad mid sirdoonka ka hadlaya mid siyaasad ka hadlaya iyo mid taariikh ururada islaamiga ee Soomaaliya soo maray kuwoodii hubka qaatay iyo xabadda qaatay taariikhdoodii ka hadlaya marka buugtaas saddexda ah daraasadan ku sameeyay waxay ahayd in Soomaalida mushkiladaha haysata waxaan u bixiyay waxa kamid ah nacas wax tar leh af Carabiga waxa lagu dhahaa al-ahmaq al-mufid
marka al-axmaq al-mufiid iyo nacas waxtar leh waa useful idiot. marka in aan helo Soomaaliya mushkiladda haysato inay tahay doqomo ama dantii dalkooda aan garanaynin ama dan dala kale nacfi u leh ama faa'iido u leh ka shaqeynayo. saddexdaas buugna ayagana dhawaanay soo bixi doonaan, sanadkan dhammaadkiisa soo bixi doonaan. laakiin buugga afraad baa wuxuu ahaa sooyaalka suubanaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsanaa. marka sheekh Soomaaliyeed oo aan aad saaxiib u nahay oo dadka aan cilmigooda iyo tarbiyadooda aad u tixgeliyay ka mid ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Ali Suufi la yiraahdo baa wuxuu i siiyay talo dhahaysa haddaad rabto inaad wax qorto ka bilow midka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam, marka kuwaaga kale barakeyn doonaan. marka sababta aan soo hormariyay waxay ahayd bal in aan shaqadii koowaad inaan suubanaha calayhi salaatu wasalaam aan ka dhigo, wixii kusoo xigana markaas aan kusoo xijino hadduu Ilaah yiraahdo. saddexdaa buug kalena waxay soo bixi doonaan sanadkan dhexdiisa asagoo luqado badan u turjumaan hadduu Ilaah yiraahdo. si buugta kale kuugu fududaato ama ajir ah u heshaad u bilowda asaga. waxaan siri talada sheekhaas aan qaatay wuxuu yiri camalkii suubanaha laga bilaabo acmaasha ku xigtay barakaysaa. marka waajibkana waa gudanayay, tanna qayb bay ka ahayd. marka sababta aan soo hormariyay waxay ahayd kuwaan horta lagu barakoobo. hore u dhaca buuggaaga waxaad ku sheegtay in ay kugu qaadatay muddo sanad iyo 8 bilood. wax caqabadaha inta qoriisa kusoo wajaha ma jiraan? caqabadaha way badnaayeen. caqabada lama dhihi karo, waxaa la dhihi karaa culays. culayska koowaad wuxuu ahaa afka Soomaaliga in wax lagu qoro wuxuu u baahan yahay hubin aad u fara badan. waxyaabaha hadda intaan hawshan ku jiray aan bartay waxaa ka mid ah markaa wax qoraysid baa loo haystaa inay adag tahay. ma afka Soomaaliga ku tahay ma af kale ku tahay ma aqaano. kulay aniga buug in la qoro waa igu cusub tahay, dadka buugta qori jiray baa si fiican u garan kara. marka culayska koowaad la kulmay waxay ahayd sixidda, yani wax ka badan 5 bilood 6 bilood waxaaba qaatayba in la saxo, luqad ahaan loo saxo, maraajicda la saxo, meelaha aayadaha iyo tafsiirkooda la saxo. hubintaa waxay qaadatay waqtiga ugu farada badan. waxaan maleynayaa intuu buugga daawacaadda gaarin ugu yaraan 6 jeer 7 jeer waa maray oo aan qalin u qaatay oo aan saxay. marka taasa waxay keenaysay marka inaad ku mashquusho caqabadaas mid bay ahayd. tan labaadna waxay ahayd tarjamada aad u sahlan inaad buugta soo qaato aad tarjunto, inaad isku aadiso maskaxda Soomaaliga maxaa geli kara iyo maxaa waay baahida ay u qabaan siirada ay u qabaan. marka labadaas inaad isla heshaa waxay u baahan tahay qofkan Soomaaliga oo la hadlaysid sidee ula hadlaysaa, haddana maxaa waay baahida siirada laftigeeda laga rabo inuu qofkan Soomaaliga barto, iyo qofka Soomaaligana maxay tahay inuu hore ka fahmo. taana isku aadin bay u baahnayd. waxyaabaha aan xasuustay waxaa ka mid ah canaawinta aan sameeyay Khadiija ummul mu'miniin baan ciwaan waxaan u sameeyay la dhaho marwada koowaad. marka nin sheekha oo culimadeedii ka mid ah Sheekh Cabdiqaadir Cabdidiiri la yiraahdo aan buugga u diray inuu soo akhriyo. wuxuu yiri marwada koowaad meesha u deedo way fiican tahay, laakiin afka Soomaaliga tarjamo way first lady bay noqonaysaa, sayid al-ula. marka xubbigii iyo kalgacaladii loo qabay baa meesha ka baxaysa. ummul mu'miniin bay waxay u arki doonaan dadku markay akhriyaan qof iska caadi inay ahayd. marka meeshaas hooyadii mu'miniinta ama hooyo Khadiija ku bedel waxyaabay runtii aad ii soo jiitay oo aan dib u bedelay ka mid tahay. waxaa kaloo aad ii soo jiitay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan si fiican u sii bartay. marna markaad dhageysanaysay oo duruus akhrisanaysay oo iska mudaalaca ku jirtay, marna waa maraad akhrinayso. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam hogaamintiisa ummadda siduu u hagayay, dagaalada siduu u hadayay, maskaxdiisii oo ummadda ku badbaadinay, waxaas oo dhan aad ay soo jiiteen. buuggan waxaad u hibaysay aabaha Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Yaasiin Xaaji Daahir. wax badanna waxaa hore uga sheekaysay inaa hooyo koris ahayd. maxaa nooga sheegi kartaa taariikhda aabaha? aaba Allah u naxariisto wuxuu ahaa markii hore nin culimo ah oo qoys culimaha ka soo jeeda. markuu xoogahana qaadayna wuxuu noqday ganacsade aad iyo aad caan uga ah dhulka Soomaalida ay degto dhan, ilaa Ethiopia, ilaa Northeastern, ilaa Nairobi ganacsigiisi gaaray. ganacsi aad u xoog badan oo markaas Soomaalidu ay ku shaqaysan jirtay oo baabuurey wax la dhahay ahaan jireen oo baawar tareelayaasha la dhahay ku shaqaysan jireen. 1974, 1973, 1972
nin Nairobi degan oo baabuurka ganacsada oo tareelayaal laho ilaa Uganda ilaa Zaire kabacdina ganacsigii iyo duruufas ku yimid darteed buu haddana wadankii Soomaaliya dib ugu soo laabtay marka nin waqtigiisa intiisa ugu badan ganacsi ku jira buu ahaa nin aad iyo aad u xagga diintana ku fiican cibaado badan salaatu leelka aad u tukada quraanka aad u akhriya caruurtiisana xorriyad fara badan siiya dhinaca kalena go'aanadiisu ay adag yihiin oo go'aanka uu gaaro aad iyo aad ugu adkaysta duruufo fara badan oo dalkii iyo dadkii iyo ummadii ay soo mareen buu qayb ka ahaayo Soomaalidu generation badan baa meel u guurguurayo mar meel u kala guurguurayo laakiin dadkii Ethiopia ka shaqeeyay Soomaaliya ka shaqeeyay ilaa Kenya ka shaqeeyay markii dambana duruufo ganacsi ah oo ganacsigiisii iyo duruufii uu ku jiray inta wax ku soo kordheen buu markii dambe wuxuu noqday dhankan Soomaaliya u soo wareegay markii dambena wadaad iska cibaadadiisa aad ugu mashquulsan buu noqday marka sababta aan buuga ugu hubeeyana waxa weeye uu dhintay Aabba Allah naxariistay hooyaa nool marka waxaan ka fikiray bal hadduu aaba dhintay in asaga fadligeeda iyo ajirkeeda aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakada buuga iyo barakada waxaan qabanayno in Ilaahay dambi dhaaf uu ku siiyo insha Allah ta'ala markii hore ka sheekeynayay hooyo iyo inay hooyo ku soo korisay xogaa dadku waxa ay u qaateen in nina aaba jeclayno xogaa uu careysan camalay dareemayaan maadaama aad uga sheekayno hooyo bis ka sheekaysay inkastoo hooyadu ay ajir badan tahay oo diinta iyo meel kasta lagu sheegay marka see waxa ku qanci lahayd dadkaas wallahi de sida loo fasiro waaye oo tafsiirka marka la sameeyay si loo sameeyo laakiin still hadalkayga hore waa ku dhaganahay aniga hooyadii ay soo korisay hooyo korisaan ahay dadka Soomaaliduna hooyo korisku Soomaali kaliya ma adduunka oo dhan bay ka jirtaa Imaam Shaafici hooyo koris uu ahaa culimada muslimiinta soo maray hooyo koris ahaayeen dad hadda adduunka madaxda ka ah hooyo koris ahaayeen marka waalidku de qof baa ku sameeya waxbarashadaada maskaxdaada duruuftaada sabab u noqdo marka taasa marka muhiimadda siinay muhiimadiina wali waa ay leedahay doorka nolosha uu hooyo ku leedahay waa ka badan tahay doorka ay aabba ku leedahay qoysas far badan jiro doorka uu aabba ku leeyahay uu ka badnaa doorka ay hooyo ay ku lahayd marka aabahay Allah naxariisto mar walba u duceeyaa inuu Ilaahay u dambi dhaafo laakiin markan soo koreeyay ilaa hadeertaan hadaabuu dhintay Allah naxariistay qofka aan ku xiranahay oo talo walba weydiiyo oo nolosheeda dhan kala tashto waa hooyaday oo aad u jeclahay runtii aabahayna hadaad ugu dhintay 20 sano ka badan waa mootan yahay Ilaahay ha naxariisto buugga sooyaalka suubanaha dhacdooyin iyo dhambaalo yaa gacan ka siiya daawacdiisa xageesa lagu daawacay buugga runtii waxaa jiro daarul cilmi oo buugta diiniga aan daabacda buug badan daabacday oo ayadu hawshan runtii qayb weyn ka ahayd inay hirgasho haday tahay xagga maraajicda haday tahay xagga hubinta haday tahay shaqo badan haday tahay hadda daabacada iyo haday tahay maxaan ku radaa qaybinta marka daartaasaan runtii hawshaas u wakiishay ayadana shaqada ugu fiican horena uga qabatay haddana ka qabanaysa la'aantoodna ma filaayo inuu guuleysan lahaa mashruuc buugga hadda qiimaha la iibiyo marka la fiiriyo xoogaa inuu qaali yahay muddo marka loo fiiriyo buugta la qoro hadda dalka la geeyay dalka waa yaala dalal kale badan waa la geeyay marka ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay si lacag la'aan ku helaan sida ardada iyo maadaama ku talisay in hatii dadka ay ka faa'iideystaan ardada iyo jaamacadaha iyo meelaha asleeda ama iskuulada ma aanan ka fakirin inuu bilaash noqdo sababtuna ma ahan lacag kaliya in la raadinayo waxaan isniri markaan dadka daraaseynay shaygu markuu bilaash yahay ma akhrinayaan waxa laga yaabaa inuu soo maro uu ka gudbo dadkuna hadda dad social media ku xiran bay noqdeen oo inay buug fariistaan waa ku adag tahay laakiin nooc dhiirigelin waxa ah ma rabtaa inaad wixii barato suubanaha sooyaalkiisa ma rabtaa inaad barato xogaa yar iska dhiib maxaan ku raahdaa akhri intaas waxaa dheer de kharashna uu galay daabacad buu galayaa rar buu galayaa qaybin buu galayaa maktabadihii baa loo qaybinayaa marka waxaasoo dhan baa markii la fiiriyo waxaa soo baxday in siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka daneynaya xogaa yaroo shilimaad inuu iska bixin karo
oo akhrisan karo ma aanan hadda ka fikirin bilaash in lagu akhristo laakiin marxalad kale waa laga yaabaa laakiin waxaan ka fikirnaa inaan luqadaha kalena u turjino hadda tarjamada waxaa socota oo English in loo turjumo oo Ramadaanka aakhirkiisa dhamaan doonta saddexda bilood soo socotana inuu kan English ka soo baxaan rajaynaynaa haddii ka uu soo baxana waxaa ii qorshaysan inaan luqadaha localka regionka ah sida af Maxaariga af Soomaaligan inaan u turjuno iyo fikrad kale jirto in af Turki asagana loo turjumo marka adu ilaa sanadkan waxaan isleenahay saddex luqadood oo kale oo caalami iyo local ba inaan u sii turjuno oo si loo sii faafiyo fariinta meesha ku jirta wax yar oo dhaqanka Soomaalida wixii loogu talagalay inta laga hagaajiyo qofkaas si uu akhrisan karo loogu gudbiyo marka qiimo loo gooyo rasmi ma jira mase meel ka soo lageeyo hadba meeshaas la siday tahay iyo cidda markaas iibinaysa loo fiirina arrimaha qiimaha iyo waxa soo dhan waxaan u xil saaray shirkadan Daarul Cilmi marka iyada duruufaha fiirinaysa hadba siday u aragtay u gadaysaa waxaad si weyn ugu mahad celisay dad badan laakiin ugu muhiimsan yahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Hanbali kaalin noocee ah ka qaatay buugan qoritaankiisa run ahaantii waxaan rabaa inaan ku celiyo mahadnaqaas Sheekh Cabdullaahi Hanbali la'aantiis buugan nuurka mtiftiin ma arkeen banaanka uma soo baxeen saddex shaqo buu ila qabtay shaqada koowaad waxay ahayd fikradu wax ku lahaa in la curiyo buu wax ku lahaa qodobka labaad uu wax ku lahaana waxay ahayd inuu maraajicda diiniga ah aayadaha quraanka axaadiista iyo meelaha laga soo xiganayo iyo team asaga la shaqeynayay hawshaasna qayb weyn bay ka qabteen wuxuu kaloo qayb weyn ka qabtay inuu buugga laftigiisa tala ku darsaday oo wixii uu isleeyahay macno bay u soo kordhinaysaa buu ku soo daray marka Sheekh Cabdullaahi Hanbali la'aantiis runtii buuggaas ma soo baxeen halbowle buu ahaa iyo dad kale oo akhyaar ah oo ayaguna qayb weyn ka qaatayna waa jiraan sida Maxamed Xasan Xirro gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada qoraa Soomaaliyeedna ah oo asagana sixidii af Soomaaliga qayb weyn ka qaatay iyo san haddaba ku sheegay Sheekh Abdulqaadir Cabdiiriyo aan u diray asagana akhrin guud akhrin details kuma sameeyay laakiin akhrin guud buu ku sameeyay iyo dad kale duwan oo aan talooyin ka qaadanayay runtiina waxaan aaminsanahay buuggaanu inuu dadka nacfi weyn u tari doono anigana muddadii dheeraad aan u fadhiyay wixii dhiirigelinayay ahdaaf badan baa jirtay laakiin ahdaaftii dhiirigelinaysay waxa ka mid ahayd kow xaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam qof kasta muslima ku leeyahay inaad gudatid buuggana waa ku sheegay qodobka labaadna waxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala bini'aadanka nimcooyin buu u qaybiyaa nimcooyinka qofka siiyo waxaa ka mid ah inuu magac yeesho oo shuhro u yeesho waxaa ka mid ah inuu xoolo helo waxyaabo badan buu helaa marka waxaan ku fakeray hadiiba magacaaga la yaqaano ma diinta iyo dacwada ugu adeegtid oo dadka iyo nabigana isku bartid oo meeshaas uga faa'iideysid marka runtii Sheekh Cabdullaahi Hanbali doorka uu kitaabka ku lahaa door aan laga maarmaynin buu ahaa khayr Allah siiyo shaqo fiican buu ila qabtay dhacdooyinka saameynta kugu yeeshay abuuga ku sheegtay waxa kamid ah oo xusuusatay in darsi ku saabsanay siirada nabiga oo masjidka dabaqeynka Bukaaraha ku yilay oo ka akhri jiray Sheekh Cabdullaahi Cali Xaashi haddii aad xoogaa dib noo celiso xusuustaada ka waran xilligaas noloshii Fahad sida quraanka aad ku baratay diinta iyo xirnimadaadi horta masaajid dabaqeynka la yiraahdo suuq Bukaaraha ku yaala hadda inuu sidii u shaqeeyo ma aqaano laakiin Sheekh Cabdullaahi Cali Xaashi baa darsi maalinta Arbacada ah buu ku lahaa runtii nin aad iyo aad xamaasi u ah oo anaga jiilkanaga markaan joognay aqoontiisa adduunyada uu leeyahay ay aad noo soo jiidan jirtay buu ahaa oo warbaahinta adduunka waxay qorayaan siyaasadii adduunka waxay qorayaan iyo siiradii nabiga buu isku dhex sameyn jiray oo maado macno leh oo qofka maskaxdiisa ku haraysa ka soo sameyn jiray laakiin xusuusteeda sidaan buugan ku sheegay waxyaabaha ku haray waxaa ka mid ah marka darsiga tagto qofka asoo saa u taagan oo dhageysanaya oo bacashirku dhamaanaya ilaa qiyaastaada intay baxdo aad u maleynaysid badagaalkii Badr inaad taagan tahay oo aad fiirsanayso mararka qaarna intay asaga laftigiisa xamaasoodo buu miiska garaaci jiray oo xoog ku garaaci jiray wuxuu lahaa marka awood oo aad iyo aad u weyn
dhanka kale sheekh daahir oo cabdi oo hadda boosaaso sheekh ka ah masjid rawda fadhiyo caalim weyn oo Soomaaliyeed ah asaguna masaajidka ceel hindi buu fadhiyay oo kitaabo ka akhrin jiray darsigii iigu horeeyay oo diini ah oo aan noloshayda dhageystana sheekh Cabdiqaadir sheekh daahir oo cabdi baa iigu horeeyay oo masaajidka ceel hindi buu joogay habeen makhribahan imid si fiican baan u xasuustaa suuratul qasas safxada u dambaysa وفسرها فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا وفسرها marka mar xataa aniga waxaan isla cashirka u horeeyo qaatay xataa siyaasadu ahaayo oo darsi u horeeyo masaajidka aad ka timid marka masaajidka inuu buuxay baan xasuustaa sheekh daahirna markaas aniga nin aad u da'yarna waa ahaa dhalinyarana waa ahaa xiro markaas masaajidka soo bilaabayo baan ahaa dadkii sheekha uu aqoon karay ama ay sheekaysan kareen kuma aanan jirin laakiin runtii xusuusteeda aad buu ugu haray afar maalinna tafsiir buu akhrin jiray maalinna siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam buu akhrin jiray culimada kale oo dacwada ama saxwada baraaruga islaamiga waxa la yiraahdo uu ka yara dhaqan duwanaayo inuu dadka wax baro dad soo saaro maskaxdiisa ku weyneed xamaasada badan kuma weyneyn dib baan waxaan ka darsayaa sidoo u shaqeyn jiray iyo sidoo wax u akhrin jiray marka inuu dad soo saaro oo tafsiirka soo bilaabo dhameeyo hadana soo bilaabo dhameeyo culimadii kale oo ka bacdi aan wax ka akhristay intii uun jiilkanagii dacwada islaamiga soo dhaxgalay oo saxwada islaamiga soo dhaxgaleen intay akhristaan qaar badan oo kamid ah waa akhristay kutubadan xadiista tafsiirka inta culimada ay ka akhristaan ka bacdina Nairobi waxaan aad ugu la saaxiibay nin sheekh horuntii dhintay Allah naxariisto Soomaalida ay wada taqaano oo la yiraahdo Sheekh Maxamed Axmed Rable Boqolsoon buu caan ku yahay jiilka hore aad u wada yaqaan haddana kulli dadku way yaqaaneen muddo 3 sano aan xiro u noqday oo waliba waxaan u noqday oo adeege qofka asaga la fadhiyo oo la joogo oo mararka qaar danihiisa u qabto kutubadii salafka hore marka akhriso waxa is leedahay meelo badan buu kaga dabeecad yahay mararka qaar waxaan arki jiray inuu asagoo u lahaan jiray hal joog cimaamad koofiyad khamiis hal joogaas markuu isbuuci 2 jeer camal buu dhaqani dhar hadaa hadii loo keeno dadku u qayqaybin jiray reer adduunyo ma ahayn waxyaaban ka xasuustana waxa kamid ah habeenkii markuu soo kaco jusi bar quraan buu akhrin salaatul leel buu tukan maalintii oo dhan danihiisii wuxuu dacwadii buu qaban habeenkii markuu seexanayo hadana jusi bar buu akhrinaya marka runtii nin noloshiisu quraanna ku bilaaba quraanna ku dhameeyo buu ahaa aqoonteeda labaad oo diiniga ah oo xooga xirnimo fiican aan ka qaatayna waa sheekhay hadda magaciisa aan dhowr jeer sheegay Sheekh Cabdiqaadir Cabdi Diiriye oo aqoon kala duwan leh aqoon diineed leh aqoon maadiyana leh kutubada asaasiga ah xooga u badnaa oo xirto markaas akhrisan jirtay ragii aan ka marsaday buu kamid ahaa muddo dheer buu firaaqa noo helay oo anaguna aan ka faa'iideysanay aqoontiisa culimada kale oo Ilaahay ii sahlay inaan ayagana kutubada qaar ka akhristo oo la sheekaysto oo wax ka dhageysto Sheekh Maxamed Haadi oo caalim weyn oo Soomaaliyeed ah oo culimadii waaweyned oo kontomeeyadii 60meeyadii dacwada islaamka wax weyn ka soo qabtay ah iyo Shariif Cabdinuur anu xirtii wax ka baratay asaga ma ahayn laakiin waaga waxa aad u jiray cajaladiisa aad loo dhageysan jiray marka aduu aqoon yar oo bawsi ah oo in yar oo aan ku cibaadeysta aan ka bartay baan ka qaatay marka culimadaas oo qolo walba waxun baan ka faa'iideeyay laakiin fikirka nolosha iyo siyaasadda iyo fahamka iyo falsafada iyo afkaaraha nolosha meesha ay ka socoto qofkan aad iyo aad wax badan ka qaatay markii dambana aqoon shakhsiga iyo saaxiibtinimo aan isku yeelanay waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo runtii muddo dheer muddo hadda 20 sano ka hor aad ugu mashquulay inuu fikir xoog ka saaro wuxuuna kamid ahaa culimadii runtii afkaarteeda ku yeelatay saameynta ugu weyn ku yeelatay ilaa markii dambana aan ka saaxiibnay laga yaabaa inay haboon tahay inaan sheego siyaasadda markaan soo aaday baan kala tashtay wuxuu igu yiri aadan iska dhaaf waxba aadin faraha ka qaad wixii aad danahaaga qabsan kartay ummadda wixii aad u qaban karto u qabo inaa xoogaa ku yara mamanahay buu arkay oo aanan ka hareynin marka hadal markii siyaasadda aan dhex galay aan arkay inay runtiis tahay baan ku dhex arkay wuxuu igu yiri nin siyaasadda Soomaali iska dhaaf hadaa galaysa laakiin mar baan kuu sheegay markaas markay gaarto sug
waxa markay baan ku iri wuxuu yiri waxa la ciyaaraa bahal la yiraahdo chess carabiga shatranji waa lagu dhahaa shaxdeena u dhowda marka waa ciyaarta ay dhahan ciyaarta boqorada maskax baa lagu dheelaa oo marka la ciyaarayo marka ciyaar kale waxa jirta la dhaho laaduugu marka dee waa saan baa dhihi wixii kaaga soo bax baad arkaysaa marka wuxuu ugu yiri siyaasada Soomaalida waa laaduuye intay chess ka noqonaysa iska sug marka adu sheekhi warkiisa ma yeelinay waa waxan baa iska dadabaash laakiin runtii saameyn weyn buu igu lahaa ma asaga maadaama siyaasadda iyo faham badan oo haysto muxuu inuu wax ku biiriyo xatee ama talooyin uu siiyo muxuu kugu diidanay asaga culimo marka la fiiriyo gaar uma aha xataa siyaasadda waa fahamsay markuu khudbayna marka aragtid waxaan u maleynayaa inuu dad badan baa saas ku yiri oo anagaaba ku niri ma adiga laftigaaga soo gashid laakiin muu jeclaa wuxuu aaminsan yahay bulshada in qiimaha ay ku jirto in bulshada la dhiso aqoontooda la dhiso fahamkooda la dhiso noloshooda la dhiso runtii Sheekh Mustafana aqoonta ku jirto waxaan aaminsanahay ummadda Soomaalida inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasha haddii uu af carabi ku hadli lahaa ama English ay noqon lahaayeen duruustiisa ama carabi noqon lahaayeen runtii aanan ku dardaraynin Sheekh Mustafa wuxuu la mustawa noqon karay culimada waaweyn ee caalamka islaami fikradaha ku soo kordhiyay Maxamed Qutbi iyo Abu La'la al-Mawdudi iyo laakiin maskax caalamiya oo xambaarsan yahay laakiin luqadii baa waxay noqotay luqad local ah laakiin 20 sano u dambeysay wuxuu yiri iska dhaafay dadka qaal Allah Ta'ala iyo qaal Rasuulullah in baa u sheegay warkii tirada badnaa uma sheegayo waxaan u maleysaa booskii oo fikirka iyo falsafada iyo nolosha iyo diinta 20 sano 30 sano ka hor oo Sheekh Mustafa xoog ku lahaa